muddooyinkan dambe waxaa muuqda in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu bedelay qorshe uu sanadkan isku dayay inuu ku wajaho Somaliland iyo Soomaaliya oo ka fashilmay kaasi oo ahaa inuu Hargeysa keeno madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qorshaha cusub ee Abiy iyo ra'iisul wasaare Khayre oo isaguna ay sheegayaan wararku in uu noqon doona galwadeenka koowaad Soomaaliya u matali doona wadahadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya. Mana jiro rasmi ah oo ay Hargeysa iyo Muqdisho iyo Addis Ababa ka soo saareen dhaqdhaqaaqyadani. Wararka qaarkood ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Abiy uu dalalka Carabta qaarkood u bandhigay aragtidiisa cusub. Haddaba si aanu wax uga ogaano, TV-ga caalamiga ee Kalsan ayaa waraysi kala yeeshay damaca dowladda Itoobiya iyo wararka ka soo ifbaxaya ee wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo doorka ay ku yeelan karto xukuumadda uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Danjira Aadan Muuse Jibriil oo hore wakiilka Somaliland ee dalka Itoobiya iyo midowga Afrika u soo noqday, waxaanu wax ka weydiinay hindisaha dowladda Itoobiya ee dhanka wadahadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya ee waqtigani. hadalkaas oo dhan waa been iyo boolqaadhe wax ka jira ma jiraan. dhinaca xidhiidhka ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo Farmaajo buunbuunin baa ku jirta. anigu xogogaal baan wahay buunbuunin ay qolada xamar buunbuuniyeen oo ay iska dhigaan in iyagu ay maxaanku idhaahdaa xaqiiqadii ay runtaha ay hayaan. xaqiiqada runtaa anaa kuu sheegaya, anaa sheegaya oo babliga u sheegaya. xaqiiqada runtii waxa weeye Itoobiya iyo Somaliland danta ka dhaxaysa ayaa ka weynta Soomaaliya ka dhaxaysa. Itoobiya iyo Somaliland مثلا كسو قاد دجان كصومالي دجان كصومالي ده إثيوبيا هي حرير كدحية Somaliland أنت حجم اللي أجي هاي وحقيقة تهاي إن أنا كم مرة مكارين هرت بل إثيوبيا إن أنا كم مرة مكارين حرير كان أنت سيقو تديراني مع عقلبه in xiriirkuna sii qoto dheeraado maalin walba aan ka dambaysa oo wadadii iyo dekadii berbere iyo ballaarintii bariga Itoobiya oo dhammi dhaqaale ahaan inuu ku xiran yahay. labada shacbi iminka Itoobiya isbedel baa ka dhacay. isbedelkaas ka dhacay Itoobiya waa mid keenay in arrimo badan ay aragtidii laga qabay isbedelaan. laakiin aragtida isbedeshay maalin walba waxba iska soo bedelaya. haddana maalin walba dantaa ka hor imanaysa, ama ta ra'iisul wasaaraha Itoobiya ama ta maxaan ku dhahaa Britishka iyo maxaan ku dhahaa ama ta Security Council. xaqiiqada jirtaa waxa weeye Soomaaliya meel degan oo istaybala oo nabadi ka jirto oo dawlad la isku halayn kartaa ay jirto maaha. yaan la khaldin dadka. Itoobiya iyo madaxdoodu way og yihiin inaan Soomaaliya dawladi jirin aga ku taagan. way og yihiin in African Union aanay ka maarmi karin maalin kaliya inaanay ka maarmi karin ciidamada. taasina inaanay dawladnimo ahayn. yaan dadka lagu khaldin. Farmaajo oo doonaya oo aan caga ku taagnayn oo khasbaya oo dagaal u galaya inuu beela Soomaaliyeed isku diro waa ay madaxda aaminaysa. waa ay Soomaaliya waxa loola dhiil gareeyaa oo xaqiiqo ah meel aan deganayn oo Ilaahay laga baryayo inuu Ilaahay dejiyo. tan la leeyahay Farmaajo iyo isku wanaagsan iyo Abiy Ahmed waxaan ku dhaaran karaa inay tahay buunbuunin propaganda looga jeedo. laakiin hadday Abiy Ahmed tahay, hadday tahay dawladaha waaweyn ee shanta security-ga UN-ka kulligood wadnaha farta lagu hayaa intaas ay degi karto maalin maalmaha kamida
oo diblomaasiyiinta iyo markaad la sheekaysto kuwa Addis Ababa jooga iyo kuwa Nairobi jooga markay runta kuu sheegayeen ay ku leeyihiin waryaadheen halkaa waxba kama soo naasacade xijista wixiina oo yaan laydin khaldin xaqiiqadu taa weeye xaqiiqo kaloo jirtaa ma jirto sidaa darteed Ethiopia waxay ku jirtaa transition iyo isbedel doorasha ku soo fool leh waxaynu ilaahay uga baryaynaa doorashadaas inay Ethiopia si wanaagsan oo nabada uga baxdo inaguna diyaar baynu u nahay shacbi ahaan iyo dawlad ahaanba inaynu Ethiopia ku taageero oo kililka dawladda kililka aynu ku taageero in doorashadaasi si nabadgelyo ah ay ku dhacdo in aynu security-ga nabadgelyada meesha aynu kaga beeganahay Ethiopia taasaa muhiima dunidana cid maanta taariikhda dib u celin kartaa ma jirto Soomaaliland 30 sanadood bay xorahayd 30 sanadood bay xijsatay xarigeeda sidaa darteed wax allaale wax xiriirkeena iyo xiriirka Ethiopia uu xumaan karaa ma jirto wuxuu ku taagay dhidib adag oo dhaqaale mid dhaqan iyo mid siyaasadeed iyo mid security ahlan wasahlan tii labaad ahayd wada hadalkan la sheegaya in ninka khayran la yiraahdo ra'iisul wasaarihi ayaa imika wixii ka dambeeyay gaargareynaya markaas waxba kama jiraan Cabdishkuro ilaah baan ku dhaartay waa been ilaah baan ku dhaartay waa been la dhoobay oo la doonayay ay doonayaan nimankaas inay doorashada shacbigaasay shacbiga reer Soomaaliya doonayaan inay ku khaldaan oo mar walba meel been yar oo meel laga soo sameeyay ay ku khaldaan maamul goboleedyada ku khaldaan dadka caadiga ay ku khaldaan wax allaale wax uu u soo dhiibay Abiy Ahmed ninka la iyo khayre xogagaal baan ahay anigu wallaahi inaanay jirin waa been weeyaan iyo propaganda lagu fushanayo wax yar oo ku meel gaadho maalin xitaa waxa la eriyo been baa ugu badan wax la eriyo been baa ugu gaabisaalay wax ka jira ma jiraan wadahadallada u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya oo muddo dheer soo jiitamayay ayaa muddooyinkii u dambeeyay waxaa la filayaa in wadahadalladu ay si rasmi ah u furmaan iyadoo labada dhinac ee Soomaaliland iyo Soomaaliya mid kastaba dhankiisa ka dhawaajiyay inay wadahadalladii dib u bilaabi doonaan laakiin ilaa hadda waxaan cadayn wadanka garwadeenka ka noqon doona wadahadalladaasi iyadoo hore wadanka Turkigu ahaa saldhigga koowaad ee wadahadallada labada dhinac walow haatan ay jiraan dawlado kale oo kula tartamaya wadanka Turkiga oo ay kamid tahay dawladda Ethiopia iyo sidoo kale wadanka Djibouti aan damaca wadahadalladu ay ka marnayn dadka kala dhumayo dayla iskuma salaamo wala iskuma soo dhawaado kala dheeraada weeyo dadka kala dhumayo dayla iskuma salaamo wala iskuma soo dhawaado kala dheeraada weeyo dunidu waa dhabana hayso koronaha dhibaatadiisa waxyeelada dhaawiciisa siyaan dhami uga badbaadno siyaan dhami uga badbaadno dunidu waa dhabana hayso koronaha dhibaatadiisa waxyeelada dhaawiciisa siyaan dhami uga badbaadno siyaan dhami uga badbaadno
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta